السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا وناكسن دمان أصحابتنا فاملي ولينا قلبي ميل بادنوي كجوكتان هلكا نقدر نصنع يوتيوب channel نور اوفيشال sidoo kale toona laakiin nuur soo dhaada muuqaalkan caawinta muuqaal guulinkan korta taa markuu rajal ka soo boqotay fadlan daad waxa ka codsan channelkan inaad subscribe noo saarto video like aad sidoo kale comment aad ka fikirkaaga aad u maasantiin filimkan waxa ku bilaabana aktarkii asxaabtiis oo ciyaaraya game online ah sida gameka PUBG oo kale ta gamekan shuruuc lagu ciyaaro ay jirto hadii laga reeyo wax Allah wixii xukumo ay sameynaysaa aktarka ugu dambeyntii wuu isdhiibaa sida gameka loo ciyaarayo mid asxaabtiis kamid ah isagoo badbaadinaya xabada ku dhacayaan kadib gameka ayaa laga saaraya kadib waxa uu xukumayaa cashada habeenkaas inuu bixiyo kadib wuxuu fiirinayaa boorsidiisa lacagta wuxuu ogaanayaa in wax lacag ugu jirin kadib wuu cudur daaranayaa wuxuu leeyahay caaw waan mashquulsanahay shaqooyin ayaa leeyahay markaas abgeed ma iman karo kadib mobilka ay ku jiraa kadib hooyadiis ayaa soo wacayso hooyadiis waa dadka adeega isbitaalada ka shaqeeya naaska oo kale ah caawiyaasha ah oo boy dhaga sida dadka waayeelada oo kale ah kadib waxay ka codsanaysaa inuu gaaska raashinka xaafadda soo damiyo maadaama ay soo ilowday asagana wuxuu leeyahay waa mashquulsanahay sidaas awgeed marka ma bixi karo mobilka ayuu ku jirayaa kadib waxa soo wacaysa gabar asxaabtiis kamid ah ayadoo ka codsanaysa in mobilka xaafadda ugu soo tagtay inuu dib ugu soo qaado hadduu soo qaado inay lacag siinayso kadib waxa Janice ayuu arkayaa kadib xaafadda ayuu aadayaa mobilka ayuu soo qaadayaa mobilka markuu soo qaado kadib xaafadda markuu imaado cabaar iyo ilin gargaraacay wax ka furo ayuu weynayaa wax ka furo markuu waayo kadib albaabka ayuu soo riixayaa albaabka uu furmayaa markuu furmo kadib wuxuu arkayaa gabadhii suulida ku jirta uu qabaysanayso kadib wuxuu leeyahay mobilka oo ku soo qaaday lacagteeda waxay leedahay korfuul mobilka xaggaas isaar lacagtan halkaas ay ku tahay kadib mobilka meesha uu saaray lacagta iska qaadanaya uu soo baxaya xaafadda ayuu imaanaya uu iska seexanaya kadib subaxii waxa imaanayso askar albaabka soo jibinayso ninka wal qabanaya qabash kaliya ma garaacis ayaa lagu daraya asagoon ogeyn wuxuu dambiya uu sameeyay kadib waxa loo sheegay inuu gabar kufsaday kadibna uu dilay askarta ay suxun u garaacayso markii banaanka soo bixisay kadib warbaahintii iyo wixii magaaladii joogay dhan aagiis ka saaran ayaa banaanka isugu soo baxayo arintii waxay noqonaysaa arin weyn warbaahinadii magaalada dhan ayaa ku faafayso kadib maxkamadda ayaa la geenayaa warbaahinadii magaalada dhan ayaa ku faafayso kadib aktarka waa la qabanaya waxaa la geenayaa meel dambaarista ayaa la geenayaa waa la garaacayaa waxaa la weydiinayaa su'aalo asagoona ogeyn wuxuu dambi sameeyay run ahaantii aad ayay xanuun badan tahay adigu wax dambi aadan sameyn aadan ogeyn lagu yiraahdo qof ayaa kubsatay kadibna waa dishay adigiina wixii aadan sameyn hubtid kadib waxaa loo sheegayaa mindida in uu gabadha lagu dilay fariis in laga helay kadib dhacan ayaa laga qaadaya waxaa loo sheegayaa dhacanka gabadha laga helay iyo dhacankiisna isla yihiin kadib warbaahinadii magaalada dhan ayaa ku faafaysaa kadib maxkamadda ayaa lasoo saarayaa aktarkii hooyadiisa waxay u qabanaysaa abukaataha wuxuu leeyahay wiilkaaga dambiga wuu ku cadyahay haddii uu dambigan qirto waxaa macquul ah in dambiga loo qafiifiyo ama maadaama uu da'yar yahay da'diis oo yar kadib in sanadii yar lagu xukumayo macquul ah runaantii aad ay wax xanuun badan tahay markii adigana waalidkaaga ay iska tabar yar yihiin arrimo noocan oo kale ah ku qabsato kadib maxkamadda markii la imaado maxkamadda ayaa la imaanayaa kadib ninkan dambi wixii lagu cadeynayaa xabsi ayaa la gelinayaa 10 sano ayaa loo xukumayaa maadaama da'diisa yar tahay 5 sano oo kufsi ah iyo 5 sano oo dhaqan celina ayaa lagu xirayaa kadib markii lagu xiray kadib waa ogtahay xabsi waa iska dhib badan yahay haddana adoo da'da yar tahay ninka xabsiga dhibaato fara badan ayuu kala kulmayaa ciqaab fara badan kadib hooyadiis ayaa maalmaha ka mid ah soo booqanayso ayadoo u sheegayso in maxkamadda ay ka heshay racfaan yar kiiskiisana dib loo furi doono asagoo rajadaas leh kadib xabsiga ayaa wuxuu kala kulmayaa ciqaab xun ayuu kala kulmayaa kadib waa la garaacaya sidii loo garaacayo maalinta dambe haddana hooyadiis ayaa soo booqanayso markii uu imaado waxaa loo sheegay hooyadiis inay soo booqatay markuu meesha imaado wuxuu arkayaa bukaataha keligiis oo socdo marka hooyadiis oo weydiyo waxaa loo sheegaya inay u adkeysan weysay dhibaatada darteeda ee isku dishay ninkan arrintii way la weynaanaysaa macquul gal weyn noqonaysaa heer wuxuu gaaraa nolosha isdhaafiyo kadib waa la badbaadinayaa isbitaal ayaa la geenayaa kadib isbitaal markaa la geeyo xabsiga ayaa lagu soo celinayaa xabsiga markii lagu soo celiyay kadib waxa u bilaabanayso nololtii ugu xmeeda u bilaabanayso maalin walba la garaacayaa waa la tumayaa kadib nin meesha jooga ayaa aqal celinayo wuxuu sheegayaa inuu jirka dhisto oo is adkeeya nin rag uu yahay waxaan xabsiga nin rag loo sameeyey waxyaabo uu akhrinayo wuu dhiirigelinaya kadib markuu dhiirigeliyo kadib maalmo kadib ninkii waxa uu iska bedelayaa ninkii oo garaaci jiray xabsiga jooga ay isdagaalayaan dhibaato isku geysanayaan kadib banaanka ayaa loo soo qaadaya inta wadada dhexdeeda la wado ayaa waxaa dhacayo dagaal dhacaya gaariga ayaa gudoomayo kadib aktarka wuu baxsanayaa sidaas ayuu ku baxsanayaa markuu baxsado kadib wuxuu u tagayaa abukaatihii ayuu u tagayaa
abukaati oo wax ka doontay inuu badbaadiyo. Abukaati wuxuu leeyahay inaan soo baxsaday dambina maanan sameynin, marka waxaan u baahanahay inaad i caawisid si dalkan uga baxo. Abukaati wuxuu leeyahay diyaar waaye, aniga ayaa kaa saaraya dalkan, waxay halkan isii fadhiisay biyo ayuu u shubayaa, meesha uu fadhiisanaya cabaar ayuu u sheekeynaya, kadib askarta ayuu ugu wacaya. Aktarkii wuu dareemaya askar inay soo socoto, kadib daaqad ayuu ka baxaya, wuu sii cararaya. Markuu sii carara kadib askarta ay amaanaysa aaway leeyihiin ninka wuu baxsaday wuu carar ay leeyihiin ayuu leeyahay abukaataha. kadib markuu sidaas yiraahdo aktarkii gmailkiisa asagoo computerkiisa isticmaalayo, aktarka kadib wuu soo baxayaa meel, wuxuu imaanayaa kubshin ayuu imaanayaa. kadib asagoo wuxuu furanayaa computerkiisa ayuu furanayaa, gmailkiisa ayuu kacsanayaa. kadib wuxuu arkayaa soo dhacaya audio ayuu soo dhacaya, cod ayaa soo dhacayo. codka ayuu dhegeysanaya. codka markuu dhegeysto kadib qof ayaa la soo hadlayo oo leeyahay dambigan aad maadan geysan, dad kale ayaa geystay, aniga waxaa diyaaraya inaan ku caawiyo. kadib ninka rajo ayuu yeelanayaa, meel ayaa lagu baliminayaa. kadib wuu soo baxayaa, meesha ayuu imaanayaa. meesha markuu imaado kadib mobile ayaa soo wacaya, link laga soo wacaya. ugu dambeyntii way is arkayaan qofkii uu rabay oo mobile kala hadlaya cod nin ayuu ahaa, balse meesha gabar ayaa ugu imaanayso. mobile ayaa la siinayaa, mobileka ayuu qabanayaa. kadib wuxuu ogaanayaa qofkii la hadlaya inay gabadhan tahay ee codka ay bedelatay, codna mobileka ay ku isticmaalaysay. kadib way soo wadaysaa, waxay keenaysaa meel amni ayay keenaysaa, dharka ayay ka bedelaysaa, qabeynaysaa, cunto ayay siinaysaa. cunto markay asagoo la yaaban gabadhan sababta ay u daryeelayso iyo waxaan u sameynayso. kadib waxay imaanaysaa asxaab kale ay imaanayso, asigoo cabsanayo oo gariira ayuu leeyahay asxaabtan yaa waay. kadib waxay leeyihiin isku sheegaan, waxay leeyihiin waxaan asxaabtii gameka isla ciyaari jirteen oo online isla ciyaari jirteen ayaan ahay, waxaan doonaynaa inaan ku caawino, garab aan ku siino. ugu dambeyntii waxaa la tusayaa muuqaaladii habkii asaga loo baxargeliyey, meel walba uu maraysay camera inay la socotay, wax walba asagu sameynaya oo la duwaya ayaa loo sheegaya, ayaa la tusayaa. kadib markuu arko kadib wuxuu go'aansanayaa dadkii asaga sidaas ku sameeyey inuu dabraac sameeyo. kadib shirkad oo waxaa jirta waa leeyahay waxaan ku qaraabada ayaa jiro, kadib dadka ayuu tixraac ku sameynaya. ugu dambeyntii sida uu soo socdo wuxuu imaanayaa qol nin dhintay oo meydkiisa ku jiro oo talaagad fridge ah la geliyey. kadibna tv meesha oo qol aroos camal laga dhigay, adiga lagu sharaxay meesha oo la sameynayo waxyaabihii asaga lagu sameeyay oo kaleeto oo shirku. dambeyntii aktarka waxaan iyo markuu arko barnaamijyadan waxa uu cadaanayso inuu arrintan ka dambeeyay abukaatiga asaga rabi in uu dhahay badbaadi oo kiiskiisa hayay inuu ka dambeeyay ay ogaanaya. kadib wuu soo baxayaa, wuxuu imaanayaa gurigii ayay dib ugu soo laabanayaan, dhacaankii dadkii wixii sameynayaan ayuu arkayaa, asaga intaas meel ayuu ku jiraa kama soo baxayo. kadib ugu dambeyntii wixii dhan ay isku sameeyeen ayuu isku khasayaa. kadib waa la ogaanayaa aktarka. kadib aktarkii waxaa daba dhiganayo ninkii xabsiga iskala soo baxayan, xabsiga ku garaaci jiray oo gaariga shilka uu kusoo geliyey kasoo cararayay, ayaa isqabsan doonaan oo isdagaali doonaan cabaare iska daba warwareeganayaan dagaal dheer. kadib wuu ku guuleysanaa inuu kasoo badbaado. kadib asxaabtii ayay imaanayaan, deemo iyo waxyaabo ay sameynayaan, barnaamijyadii wixii oo meesha iskugu jira dhan ayaa askarta iskugu keenayaan. kadib barnaamijyada markii la arko abukaati oo laadeg filinka ah wuu xanaaqayaa maadaama uu ka fashilmay mishinkii uu doonayay oo lacag badan ku sugayay. kadib wuxuu leeyahay isdaji waxaan, kadib ninka ayaa wacaya wuxuu leeyahay isdaji waxaan waa wax yar si kale ayaa ku xalinaya. kadib ninkii asagoo careysan ayuu computerkii mobilada wixii ayuu jijibinaya. kadib ninkii ayuu ugu imaanayaa meeshiis ayuu ugu imaanayaa asagoo shaqo computer wax ku jiro. kadib way isdagaalayaan, ugu dambeyntii adalaadirka waa la jirgaraacaya. markii la jirgaraacay kadib wuxuu ku guuleysanayaa inuu computerka kala baxo sirtii wixii inuu kala baxo ayuu ku guuleysanayaa aktarka. kadib sirtii ayuu kasoo qaadanaya, wuu soo baxaya, wuu soo cararaya. asagoo soo baxay kadib waa la soo wacaya, waxaa loo sheegaya asxaabtiis in la soo afduubtay, asxaabta asaga garabkiisina in la soo afduubtay oo la jirgaraacayo ayaa video loo soo diraa. kadib markuu arko kadib wuu soo cararaa, ninkaas ayuu soo baxaya, wuu go'aansanaya inuu kasoo tago midka kale maadaama asxaabtiis oo badbaadin ay caawin ay ga baahan yihiin. aktarkii wuu soo baxaya, wuxuu imaanayaa halkii asxaabtiisa lagu soo afduubtay, wuxuu asxaabtiisa ayuu badbaadinayaa, wuu ku guuleysanaya asxaabtiisa inuu badbaadiyo. kadib fiidiyowadii iyo wixii oo kasoo koobi gareeyey computerkii abukaataha. kadib wuxuu shaashadaha soo fadhiisanaya gabadhii abukaataha caawiyada u heed ayuu soo fadhiisanaya, asagoo iyada wax walba sheegayso oo naqirayso. kadibna fiidiyowadii iyo sida waxa uu duubi jiray iyo waxa uu sameyn jiray dhan oo flash ah ayaa warbaahinta loo arkeynaya. kadib wax walba way cadaanayaan aktarka inuusan wax dambiya lahayn. kadib abukaati wuxuu isku dayaa inuu baxsado oo carar ayuu isku dayaa. kadib inuu carar ayuu isku dayaa, nasiib xumo laakiinse gaarigii uu ka cariri lahaa ayaa laga baxayaa steerinkii. ugu dambeyntii aad ayuu wax xanaaqayaa, laadirkii halkaas ayaa lagu qabanaya, aktarkana halkaas ayuu ka helayaa xoriyadiisii. filinkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. filinkan magaciisa waxaa la yirahdaa Fabricata City ayaa la yirahdaa.
wuxuu soo baxay 2017 ayuu soo baxay waa film run ahaantii sheeko fiican qisa leh run ahaantii filimkan waa filim guuleystay box office-ka wuxuu ka keenay lacagta USA markii loo fiiriyo 18 milyan ayuu keenay run ahaantii waa film aad iyo aad u gadmay qiso fiican leh filimkan haddaad rabtid inaad si caadi ah u daawatid filimkan waxaa yaraa Fabricated City ee la yiraahdaa Fabricated City wuxuu soo baxay 2017 filimkan waa ka heli kartaa YouTube-ka asagoo aan af Soomaali ahayn luqadiisu ku baxaya asagoo af Soomaali hadda u baahan tahay waxaa ka heli kartaa website-ka Fanbroch sida Google oo kaleeto waa ka fiirin kartaa kulli inuu ku jiro macquul waa hadduusan ku jirin insha Allah haduu la raado link aan kugu sameyn doona hadii aad u baahan tihiin sida Ismaaciiliinta oo kaleeto ah hoos ayaan soo dhigi doona insha Allah haduu la raado muuqaaladan sidii u bilowdeen waaye insha Allah way daba socon doonaan isbuucii 4 jeer ilaa 5 jeer oo kaleeto ay soo gelin doona idinkana waa inaan dhiirigelisaan asxaabay insha Allah haduu la raado hadaa muuqaalkan ka hesheen comment waa nagu wadaagi kartaa insha Allah haduu la raado waa soo badinaa aad iyo maasantiin asxaabay fadlan hadaan la soo gaartay ilaa muuqaalkan gabagabadiisa fadlan waxa ka codsanaa channelkan subscribe noo saarto video like asaarto sidoo kale comment ama waqti fikirkaaga aad iyo aad maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh